dagaalkani u dhaxeeyay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa qaybtii hore ka dhacay meel duleedka uga beegan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaalka oo socday saacado kooban ayaa waxaa ciidanka AMISOM qasab ku noqotay inay dib ugu laabtaan dhanka degmada Balcad oo ay markii hore ka soo ambabaxeen. daqiiqada kadib dagaalka ayaa gaaray gudaha degmada Balcad kaasoo u dhaxeeyay ciidanka maamulka degmada iyo ciidamada midowga Afrika oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaabkii weerarka ku qaaday degmada. dadka degan degmada Balcad oo laga dareemaya cabsi xooggan ayaa sheegay inay arkayeen Al-Shabaabka gudaha degmada u galay lana wareegay xarunta maamulka saldhigga Baleyska iyo xarumo kale oo ay dawladdu leedahay. Al-Shabaabka maanta gaaray degmada Balcad ayaa waxa ay gabi ahaan ay qaateen qalabkii ay ku howlgalaysay idaacad maxalli ah oo lagu magacaabo Radio Balcad taasi oo lahaa shakhsi ka soo jeeda degmada. intii dagaalku ka socday gudaha degmada Balcad ayaa waxaa hakad galay isku socodka gaadiidka dadweynaha isaga kala gooshay gobolada Banaadir iyo Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab waxa ay gubeen gaadiid dagaal waxaana ay gacanta ku dhigeen gawaari nooca xamuulka qaada oo ay sahay ku rarneed isla markaana ay lahaayeen ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. qaybta saddexaad ee dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay dhabarka dambe ee warshada dharka degmada Balcad halkaas oo ay fariisan ku leeyihiin ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. maamulka degmada Balcad oo aan isku daynay xiriiraad aan la sameynay waa ay ka gaabsadeen ka jawaabista taleefanada balse gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuge oo aan la hadlay waxa uu sheegay inay ku howlan yihiin helidda xogta buuxda ee xaaladda dagaalka khasaaraha ka dhashay waliba macluumaad kale. abbaara labadii duhurnimo xilliga geeska Afrika ayaa Al-Shabaab waxay isaga baxeen degmada Balcad kadib markii maamulka degmadaasi uu helay gurmud ciidan oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar. 27kii bishii February ee sanadkan 2018 oo ay ka soo wareegatay 3 cisho ayay ku beegan tahay goortii uu gaaray deegaanada qaar ee maanta lagu dagaalamay ee ka tirsan nawaaxiga degmada Balcad taliyaha qaybta 27aad ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe Maxamuud Maxamed Aadan Koronto kaasi oo sheegay in soo gabagabeeyay howlgalka ay ka wadeen deegaanada ku dhow Balcad ee lagula dagaalamay dagaalyahanada Al-Shabaab inkastoo maanta shabaabku ay muujiyeen in wali ay ku sugan yihiin inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad. Aadan Xuseen Daawud, Sab TV, Jowhar.